عيالك ازاي عيالك اللي جيدا ماركن أنا ولا يجي ليدي محا كو جيدا إن عيالك ازاي عكو شقيسو حبي دب بدنا يا دنبيان بلا يوتنا فلا دنبي waa ka meedhaya عفوني حبي ما شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته dambi dhaaf waa la iga dhigay laakiin abay waxa aniga horta qalad aan sameeyay aan markasta maskaxdeedii ku celceliyo oo ka fikiro oo dhaho wax khaldantay markaa nin oo ilmihiisa iyo xaaskiisa quruxda badan oo marka ka fikiro just like qof bini aadan ah ma qoftaan fikiraya marka ka fikiro just like qof bini aadan ah ma qoftaan fikiraya umad naga saar fiiri markaan ka fikiro nin ilmihiisii ciyaalkiisii xaaskiisii soo dayacay annakana wax kale ka degno oo wadnaheeni siino oo jeclaano waxaas khalad way moogtahay qofka already family qurux badan soo dayacay sidoo adiga ku haynaya marka waxaas ka fikiro la qofkaas ay haynaya misdahayo ma fahanteen so dumarka in aqliga gashatiin waa xabadaas because ani markaste waxa is dhahaa way aniga qofkaas oo wax weyn uga dhigaya ciyaalka quruxda badan leh xaaskiisa waxaas ka soo baxay nin oo ilmihiisa haysan waayay aniga inta ma ogta xubiyay waxa oran jiray dad ba example nin ilmihiisa hayn waayay miya aniga maskaxdeedii marka ku soo noqdo fikro qofkaas inaa hilmaamo oo ku qasbanahay because already qofkaas dad badan oo aniga iga qaalisan oo naftiisa ku qaalisan soo dayacay faantay qof noocaas inaa la isku dhibo inaa la iska ilaaliyo waa aad weyn حبي أنا وأكو همين جرو حا أوران جرو داد وحا أكيد جزام بالمفهم وحا أوران جرو ما شاء الله لقوا الصومالي دا آدي سكو تشعل على إلهي موكوسيني وأكو همين جرو أسراع عيسين قعان تسقب سنسي وحيالة سلاس لكن مركا قلي وان يتشوي أنا عايز أنا سؤال أجانب وسؤال والله ده ما أنا قلي ما حد كفر قف ilmihiisii soo dayacay problem ku leeyahay ninka adiga kor soo guursaday Soomaali fil sane ciyaal buu haystay ninkaagi ciyaal muu haystay ma ayaa sheegaysa ma buskud misa adigu laba soo martay ma dhaantida isku marka jeewayaan ma kan dambe laba soo martay hal baan ku dheer yahay meel laba ku dheer yahay ma kan hore ma buskud baa sheegaysa labada kan baa ka ciyaal badan buskud baa ka ciyaal badan so do you think adiga maanta kaas buskudkaas ilmihiisii iyo xaaskiisii quruxda badan qof dhano isaga ka beermay intuu soo dayaco adiga inuu wax fiican kuu samaynayo ما كفكر أنا ما وقتها ما فكرين لا كفكرتد واي مسكحة إنا جلسد واي فيري نين كان أركيسد عيال دي إيزي ما فهمت المهاجي واي دي جيسي واي ما فهمتي نين أن عيال كيسي وحبا أسمين أو عيال كقروح بضل صوت ضيعي أديك صدوق هو هينكرا مسكحة هذه فر حبي لكن سداد كوغان كرتid baa adag in ciyaalkiisa soo dayacay ma ogaan kartid ma dayacay maaha fiiri soo dayacay ilmo kale iyo naag kale sheegina dumarow hal mar dhageysta been ha isku sheegina see uu ogaan kartaa inuu soo dayacay ama soo dayacay ama daayay nin familkiisa quruxda badan la xaaskiisa quruxda badan la ciyaalka u soo dhashay soo furay oo ka soo tagay oo adiga nolol kula sameystay do you think adiga inuu wax ku qabanayo already dadkiisii buu ka soo dhaxbaxay no abay waa la isfuri karaa waa la kala tagay waa la isfuri karaa ma abay meesha waa la isfuri karaa waxaas kuma taagno waxaan ka hadlayo fahan meesha aniga ka hadlayo fahan waa la isfuri karaa of course ma diidani waa muxuu ka imaan karaa ninka hadduu gurigiisa haysto ilmihiisa jecel yahay oo xaaskiisa jecel yahay do you think furitaanku inuu dhacayo oo iyada maqlaayo ma dhacayo markaas ka fikir ninka ciyaalka qofka badan xaaskiisii soo dayacay adigana inuu ku soo dayaci doono maskaxdaada inay ku jirto waaye ma fahantay quruxda badan adiga adduunka ilmihiisii u jecel yahay ayuu soo dayacay adi muxuu like adi meesha maxaa ka taagan tahay inaa ka fikirta maskaxda ka shaqaysiisid adigu maxaad iskaga eegi weyday kii caruurtiisa soo dayacay ee ku yimiday السلام عليكم سلام حبيبي أنا ناقة هنروم مجعل الدي دمر هدار